Mustafa waxay tiri naagtii faalalowga ahaa meesha fadhiday jidkay fadhidaa waxay tiri kaalay gacantaada adna aan fiiriye saaxiibka maadaama aan gacantiisa fiiriye wuxuu yiri wax aad wadid wax aan aaminsanahay male rabbigaan aaminsanahay markay saas tiri way usoo kacday way soo istaagtay iyadoo qoslayso naagtii faalalowga ahayd cirbad yar ee wadata ayay garabka ugu siisay garabkay ugu taabatay cirbad xanuunkeed intuu yiri waxaan igu mudday markaasay waxay inta fadhiisatay ee hoos fiirsay usoo jeestay waxay tiri gabar makuu doonantahay aad mar dhow guursanabtid khatiiba markaasuu wuxuu yiri haa markaasay waxay ku tiri hayahii gabadha kuu doonan bisha caaqirkeeda way dhimanaysaa la soco bisha caaqirkeeda way dhimanaysaa subxaan allah jisaas fiiri adiga ma cilmi qaybaa tahay yah laa qayb ila allah subxaan allah erigeysoo yiri waqtigeeda dhimane anna waqtigeegaa dhimana ee waxaa wada noogu kala wado markuu guriga aaday markuu seexdabo waxaa hor imaanayso isagoo la leeyahay khatiibadaada gabadha kuu dooneed bisha caaqirkeeda dhimanaysaa qisadan qisa cajiib ah maa balna kaash insha allah qisadan aan wada dhegeysanay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قصة ما أنت إذن وضع وحيتاي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أنا إذن شيء سحر يفهللو يبلايو وحاصلا وحاكا هذا قرانك وأنا لقعد بالإستا سبحان الله ويلكا ما أنت أنا يرى قصتك وسعته أسيري ساحبك أيقو جدك وضع سعودان أيو حي أركين سلام فهللوه marka wiilkan saaxiibkiis ayuu wuxuu aaminsan yahay dadkan wax faaliyo waa iska aaminsan yahay subxaan allah asagoo dhahay warniya waxaan ma jiraan cudbileyso waxaan subxaan allah waxay ay hayaan ma jirtee laa qayb ila allah subxaan allah seewaay cilmi qayb ilaahi le bilaadan cilmi qayb ma noqon karo subxaan allah wuxuu yiri maya waa u tagaya u tagay gacantiisa u dhibtay wax fiican u sheegtay ma guursatay maya naag ma ku doon maya waa guursanaysa dhow asagoo garab taagan oo dhaabiyeen waxaan ha aamin ayaan soo istaagtay tiri adiga ma guursatay kaasuu yiri maxaa guurkayga gurdabadeeda ku daba dhigay xirbad yar ee wadata ayaa garabka aga siisay markaasuu maxaa iga durtay yiri garabka way fadhiistay hoosay fiirsay koray soo fiirsay waxay tiri naag ma ku doono kaasuu yiri naaga ii doonan oo khatiibadeeda amar loo guursado bal ogow way tiri gabadhaas kuu doonan bisha caaqirkeed way dhimaneen subxaan allah bal iyadaa og qofka dhimanaa waqtigiisoo dhimana ilaahay lay oge qof sheegi karta ma jirtee waa soo baxay wuxuu naga tago yiri waqtigeeda dhimana anna waqtigeegaa dhimana waa kasoo tegay markuu gurigiis yimid oo habeenkii saaxa is yiri waxaa hor imaanaa hadalkii ahay way dhimanaysaa bisha caaqirkeed ay dhimanaysaa gabadha kuu doonan gabadhii ay sheekaysteen oo iska dhigay maalin dambe gabadhii waxay tiri wuxuu yiri hayna bixi waa soo soconayna ayaga soo raacay ee kafeteeri inay sheeko ku yimaadaan socdaan ayay isagoo iyadoo jidka socoto kabihii siibatay waxaa durtay dhaladii ka siibay dhaladii ka duuba warqadii maxaa ugu duuba maxaa lahaa mara yarow korkeeda dharka ay wadatay tarxadii ka jeexay ugu duubay oo waday gurigoodu geeyay wuxuu yiri taan ku geey way diiday lugtii xanuunka sii batay habeenka dhan waa soo bacaa hooyadii aabeeda u sheegtay waa lala cararay isbitaalka la geeyay lugtii waa laga soo daawiyey gurigaa loo socoliyey lugtii waa ureysatay asagoo markuu seexdaba iyo markuu taagan yahay dhinaciisi wax ka hadlaya leeyihiin way dhimanaysaa bisha aakhirkeed way dhimanaysaa asagoo yaaban oo marna cudubileysanaya oo yaabanya ayuu marka dambe waxaa dhacday gabadhii inta u tagay wuxuu yiri maanta waxay tiri waxyaalo yaryaraan rabaa inaa magaalada ka doonto markaasuu wuxuu yiri waaye waxay tiri maanta waa iska fasaxsan tahay isma raaci karno magaaladeeda iska gal ana waxyaalaan doondoonnaa haye markay saas ugu dhaqaaqday ee laamiga goy istiri baabuuraa gabadhii ku dhuftay yani baabuuraa dardaray qayladii iyo ummadda iskugu timid asaga meeshiisii ayaa wuxuu yiri ama waxaan ku noqdo yiri salam aan laga nuuxsan karin kadib wuxuu yiri kelmadin waa igu taagantuu yiri oo naagtii tiri
gabadhiina bisha aakhirkeeda la jooga xaadisay gashay oo shilaa ku dhacay gabadhi isbitaalka lala orday isbitaalka markii lala orday hadalkii oo yacni naagtii falalowga ahay waa aamin la'yahay wax la aamina maba ahanbo laakiin wuxuu ahay nin mu'min lah yacni qofku markuu ilaahay u dhow yahay waxbana shar iyo shaydaan iyo balaayo iyo wax ay ka qaadi kartaan ilaahay u dhowdahay mise ilaahay haddaa xiriir leedahay waxba kaama qaadi karto wuxuu sameeyey masaajid isbitaalka ku dhow intuu fariistay suu uu ilaahay cibaadadiisa hor fadhiyey oo salaad intuu dukaday rabbigay gacmaha ugu taagay gabadha ilaa waxaa ku jirtaa qaliin oo ilaahay u baryaayay oo ilaahay rabbiyow adaa ilma qayb ah laa qayb ila allah ilaahu adaa ilma qayb ah xasbi allahu nimca wakiil rabbiyow adigaa gargaarkaaga ilaahu waxaas ma aaminsan rabbiyow adaan ku aaminsana waqtigaagi waqti qofka ugu badalays rabbiyow raxmaankeeyo ilaahu ha kulmin naagtaas hadalka ay tiri yaa iyo gabadhaan geerideed rabbiyow ha kulmin maxaa yeelay qalbigeyga tafshiishaa ku furmaya maskaxdeeda tafshiishaa ku furmaya waxay noqonaysaa inaa aamino rabbiyow raxmaankeeyo waa ku baryaa adaan ku aaminsana yaa allah yaa raxmaan yaa raxiim yaa kariim gabadhii qaliinkay ka soo baxday alxamdulilah wuxuu sheegay dhakhtarka inay fiican tahay 100% alxamdulilah gabadhii qaliinka markay kasoo baxday lasoo wacay gabadhii qaliinka waa kasoo baxday wayna fiican tahay oo farxay rabbiga gacmaha u hore wuxuu yiri alxamdulilah shukr rabbil caalamiin wuu soo baxay isbitaalka markuu yimid gabadhii waxaa lidhi biljinkaa ku jiro xoogaa baa la sugaa waa la sugay iskama tegin wuxuu yiri iska taga idinka daartiin anigu inta la fadhi karaa habeenkii markay soo naaxday qofka ugu horreeyey ee aragto wuxuu ahaay wiilka u doonay wuxuu yiri caafimaadkaaga waxay tiri waa fiican alxamdulilah wuxuu markaasba aaminsanaay inay waxba faalalow iyo sixir iyo balaayo aysanba waxaas wax soconaan siiba faalalow wax jiro inuusan ahayn asagoo aaminsanaay ayuu si fiican usii aamin fahant kadib waxaa dhacday gabadhii markay caafimaadkeeda tamaam noqotay ay noqotay in arooskooda la qaban qaabiyo ayuu wiilkii iyo saaxiibada ahaayeen markay wada kulmeen is ag fariisteen wuxuu yiri dhegeyso faalalowga aad aaminaysa jooji mi itiriyuu yiri bisha aakhirkeed ayaa dhimanaysaa bisha aakhirkeed horta ilaahay waxaa waaye dambi dhaaf ugu dhigay shilay gashay laakiin ma aysan ku dhiman welina way soo taagantaha ma aysan dhiman waqtigeedana waqti alla ugu daraa anna waqtigeyga waqti alla iguma daraayo marka waxay ay naagtaan iyo faalalow walba oo wado waa been waxaan ku dhihi lahaa saaxiibkeyo adna ka toobadkeen waxaad aaminsantahay awalba aan ma aaminsaneyn haddana ma aaminayo rabbigay subxaana wa tacaala asaga lay aaminaya sababtoo wax walba asaa awood u leh jinka la sheegaya xataa asagaa caabuda maxaa yeelay waxa waaye jinkii insigaba ila la yacbudullahana marka ma ahanuu yiri inaad aamintid waxaanan jirin ee maskaxdaada faalalow inta ka bixisid waxaan ku dhihi lahay tooba ilallah inta tiraahd rabbigay baryada alla bari asagaa wax walba awoodo asagaana dilka awoodo asaana caafimaadka awoodo xaydile maxaa la jira xaydili xaraarigu nooleeye insha allah tabaaraka allah marka qisadan maanta intaasay ku egtaa insha allah waxaa idin leeyahay qisadan qisa lamid ah insha allah share noo dhaha like noo dhaha subscribe noo dhaha dadkan ugu cusub waxaan leeyahay soo dhawaada gambalaalka furta sidii qiso walba aan usoo geliyo aad insha allah aad ula socotaan waxaan idinkaga tagayaa caafimaad bashbash barwaaqo cimri dheer cibaado suuban asalaamu calaykum